أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم. وعشردي aan ugu talagalnay bisha Ramadaan ee barakaysan, xalaqadan caawa waxaan uga hadli doonaa aadaabta soomka insha Allah taala. soonku hadda ka hor baan ka soo hadalnay fadliga uu leeyahay iyo waajib ahaanshihiisa iyo adilada ku soo aroortay iyo waxa looga baahan yahay qofka muslimka. Waxaan ka hadli doonaa aadaabta iyo akhlaaqiyadka looga baahan yahay iyo waxyaalaha wanaagsan ee loo baahan yahay mustaxabka ah qofka muslimka ah in uu sameeyo bisha Ramadaan. insha Allah taala ahkaamta waajibaadka iyo dadka ahlu acdaartana durus dambe ayaan ku sheegi doonaa haddii Allah idmo. waxyaalaha sunnada ah ee dad badan ay ka tagaan bisha Ramadaan waxaa ka mid ah as-suxuur, in la suxuurto. suxuurtu waxay ummadda islaamku ay ku ijmaacday oo ijmaaca culimaduna isku waafaqsan yihiin inay tahay mustaxab, aysan waajib ahayn, oo qofkii ka seexda runtii ama ka taga uusan wax dembiya ma laha, wax dembiya ma leh. Anas wuxuu nebiga ka warinayaa sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi nebigu, tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka. وسحورته حديث بخاري ومسلم باوري سحورته بركة أي لا بركة أي كجرت إلهي وحكو بركين يا مالنت هذا إلهي وحكو بركين يا صوم كاجا مركا سحورته والنبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة. نسائي غير كيسنا وحي ورينيان أو أي كورينيان مقدام من معد كرب وحي كورينيان يكرب وحي كورينيان نبي إنه صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا السحور فإنه هو القضاء المبارك. سحورتان دائمة وهكتجننا وقضاء وعنت بركيسا ساس بقى النبي اللي جوري هذا هو سحورته سبب نقونيسا محاس السحور نقونية. سحورته علماء واحد يكون حقيقة بيسا قفك إنه وحنا أما وحبه بعد منتصف الليل مركي هبينك أو كالبدمه إلى لا يجاريه الفجر إنه وحنا haba yaraado waxaasi ama wax cabo xataa biyo kaliya hadduu wax kala waayo inuu qofku wax cabo uusan ka tegin ayaa loo baahan yahay inuu wax cuno. as-suxuuru baraka falaa tadacuuhu. suxuurtu waa baraka. nabiga sallallahu alayhi xadiis imaam axmed uu wariyey, suxuurtu waa barake, ha ka teginina buu yidhi nebigu. wuxuu fa ina allaha wa malaa'ikatahu, alliya malaa'igtiisu yusalluuna cala almutasaxiriin, waxa ay u duceeyaan oo ay ammaanaan. waxa weeye haday salaad ay noqoto ilaahay waa amaanid iyo sharfid, malaa'igtana waa duco ay u duceeyaan in maaragtay dadka suxuurta. marka waxa loo baahan yahay suxuurta inaan laga tegin, waa shay wanaagsan oo baraka oo sunnadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. waxyaalaha kale oo aadaabta soonka ee mustaxabka waxa kamid ah in la dedejiyo maaragtay afurka. dadka qaar baa dib u dhigo oo dhaha aan hubsano in qoraxdii dhacday, oo saxiix waa wax loo baahan yahay in la hubsado qoraxdu inay dhacdo, laakiin markii aad hubsatid inay dhacdo waxba ha akhirin, horay ka suxuuro, horay ka afur baan ula jeedaa, isla markii hore ka afur. dadka qaar baa salaada hormariyo dhaabal aan salaada isdhaafino kadib aan tartiib cunto u cunne may. waxaa sax ah oo sunno ah in marka hore maaragtay qofku uu afuro, saasaana fadli badan oo ajar badan. nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, laa yazaalu nnaasu bikhayr, dadku khayr ka suuli mayaan maa cajalu lfitra, inta ay ka dedejinayaan afurka, khayr bay dadku sugan yihiin. xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariye, waa xadiid saxiixa. yacni haddii marka dadku ay dib u dhigaan afurka, waxa weeye khayrkoodu waa yaryahay weye. khayrkoodu waxa uu ku jiraa in ay afurka dedejiyaan oo markay qoraxdu dhacdoba ay horay ka afuraan. saasaa loo baahan yahay. waxyaalaha in lagu afuro fiican oo sunnada nebiga ah waxaa ka mid ah inuu qofku uu cuno timir maaragtay si witri ah, 3 xabo ama 5 xabo inuu cuno, ama 7 xabo ama intii uu doono. waliba timirta rudabka waa timirta maaragtay cusub, maaragtay jilicsan. badanaa wadamadan Yurub iyo inaan laga helin baa laga yaabaa, iyo maaragtay Soomaaliya meelahaas, laakiin carabaha laga helaa.
marka timirta kaloo caadiga ah ku afur iyo biyo saasaa wanaagsan in lagu afuro timirta saasaa wanaagsan. anas wuxuu leeyahay oo khaadimkii nebiga ah, nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku afuri jiray timir qabla an yusalli. saas buu ahaa nebigu sala allahu calayh wasalam, timir buu ka afuri jiray. waa xadiid saxiixa weeye. wuxuu kaloo nebigu yidhi xadiidkii salmaan ibnu caamir, nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam idaa kaana axadukum saa'iman, qofkiin marka uu sooman yahay, falyufdir cala tamr, timir ha ku afuro. fain lam yajid atamr, hadduusan timir helina facala almaa, biyo, faina almaaa tahuur. hadda arrinkaas xataa takhaadiirtu way qireenoo waxay dhaheen timirtu waa shayga ugu horeeya ee qofka maaragtay soo celinaysa awooddiisii oo si dhaqsa ah dhiigga ugu milmaysa, enerjigana usoo celin si dhaqsa ah ayay dhaheen maaragtay. marka taasna waxay ka mid tahay mucjizaadka maaragtay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam, xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen, idaa qudima alcashaa'u fabda'uu bihi qabla salaati almaqrib walaa tacjaluu can cashaa'ikum. haddii cuntada lasoo dhigo, cuntada haddii lasoo dhigo, casho waxa la yidhaha cuntada qoraxda marka dhacda kadib la cun. haddii cuntada lasoo dhigo, cashadiina bilaaba, yani afurka ku bilaaba, oo ha u degdeginina salaada, ha u degdeginina. laanna waxa weeye salaadda waxaa la rabaa qofki inuu ku tukado isagoo oo damiirkiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo maankiisuba ay kaamil yihiin, oo degan yahay, oo uusan ka fakerayn gaajadii iyo tartiibta u cun, tartiibta maaragtay ilaahaygii kugu farad yeelay salaadda inay awal ka tukatid baa haddana kule maya, tartiibtaada u afuro, adigoo baahidii kaa ba'day tartiib u tuko si aad u khushuucdid. saasaa fadli badan oo salaadana ajar badan. waxyaalaha sunnada waxaa ka mid ah oo dadku badana aysan haleelin oo ay ka tagaan, ilaan waa dad qof maanta o dhan gaajaysnaa, markii la addimo isla markiiba cuntadu ku boobayaa. qofki inuu ducaysto, waa waqtiyada ducadu ay mustajaabka tahay o ilaahay u aqbalo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala bisha ramadaan markuu sheegay aayadihii shahru ramadaan wuxuu ku xujiyey maaragtay ibarya buu yidhi, yaa udcuunii astajib lakum, ilaahay ibarya buu yidhi subxaanahu wa tacaala. marka in ilaahay la baryo baa loo baahan yahay markii la afurayo, adducaau cinda alfitri wa ahnaaء asiyaam. marka la afurayo iyo intaas sooman tahay ilaahay iska baryo, gacmaha kor u taago oo ilaahay bari subxaanahu wa tacaala. ibnu maajah wuxuu ka wariyey cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas ana nabiya sala allahu calayhi wasalam, nabiga nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee inuu yidhi, ina lisaa'imi cinda fitrihi ducaaءun aw dacwatun maa yuraddu aw maa turaddu. qofka sooman marka uu afurayo wuxuu leeyahay baryo ilaahay uu baryo, haddii uu baryana aan la celin. wa kaana cabdullaahi marka xadiidka warinaya wuxuu ahaa idaa aftara, haddii uu afuro, yaquulu wuxuu odhan jiray, allaahuma inii as'aluka biraxmatika alatii wasicat kula shay an takfira lii. saas u dhihi jiray, ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa, aan kuu weydiisanayaa naxariistaada waasica u noqotay cid kasta iyo wax walba. ilaah waxaan ku weydiisanayaa an takfira lii, inaa ii dembi dhaaftid. nebiga waxaa ka sugnaatay oo saxiix ah inuu dhihi jiray markuu afurayo, dahaba atama'u, waa tegey, oonkii waa tegey, wabtallat alcuruuqu, xididadiina waa qoyeen, wa habata alajru in shaa allahu, ajarkiina ilaahay idankiis wuu sugnaaday, wa habata alajru in shaa allahu tacaala. saasoo kale xadiid inkastoo mursal uu yahay, nebiga waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray, waana fiican tahay in lagu ducaysto, allaahuma laka sumtu wacalaa risqika aftartu, ilaahu adaan kuu soomay, risqigii a siisay ayaanan ku afurayaa. marka waxyaalaha mustaxabkaa ee wanaagsan ayay ka mid tahay. waxyaalaha kaloo wanaagsan waxaa ka mid ah oo loo baahan yahay alkafu camaa yatanaafaa maca asiyaam, qofku inuu ka joogo waxyaalaha soomkiisa maaragtay wax u dhimaya oo soomkiisii nuqsaaminaya oo ajarkiisii baabi'inaya. xalaqadii u horreysay baan ku sheegnay axaadiistii nebiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalam ee nebigu uu lahaa, qofkiin markuu sooman yahay falaa yarfuth walaa yafsuq, wain saabahu axad, hadduu qof uu caayo ama maaragtay qaatalahu ama la dagaalamo, ha dhaho inii saa'im. marka waxaa loo baahanya qofka muslimka ah soonku maadaama uu yahay qurba oo min afdali lqurubaat, waxyaalaha ilaahay loogu dhowaanaya waxyaalaha ugu wanaagsan, looguna talagalay soomku waa madraso ama waa iskuul loogu talagalay qofka naftiisa inuu change ku sameeyo, akhlaaqdiisa inuu bedelo, naftiisa inuu dhaqo oo uu hadibo naftiisa oo barbaariyo. loo baahan yahay inuu naftiisa uu ku khasbo uu baro khayrka,
waxaa aad u habboon qofku inuu xifdiyo carabkiisa, inuu xifdiyo acmaashiisa, inuu xifdiyo inuu ka fogaado acmaasha daqraysa ama dhibka u geysanaysa soomkiisa si ajarkiisa uu taam ugu noqdo oo maxaa yeelay oo u helo taqwadii ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. ilahay waxaad mudantihiin inaad heshaan taqwada ilaahay. marka qofku inuu isku dayo inuu afkiisa uu ka haysto siduu cuntada iyo cabitaankaba afkiisa uga hayay inuu afkiisa uu ka haysto waxyaalaha kale ee nala ka nahayey ee xadiidka abi hurayra ku soo arooray ee nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa asiyaamu min alakli washurbi. soomku ma ahan in cunto iyo cabitaan keliya laga jooge, inama siyaamu soomku waxa weeye min allaqwi waalrafath, in laga joogo hadalka xunxun, hadalka laqwiga, hadalka maaragtay xodashada iyo dumarka iyo waxa ku tacalluqa hadallada xunxun in laga joogo baa loo baahan yahay. fa in saabaka axadun aw jahila calayk, haddii qofku caayo ama kugu soo xadgudbo oo uu kugu noqdo qof safiiho maangaaba, adigu ha noqon maangaab ee waxaa ku tiraahdaa innii saa'imun war waa soomana or iga tag ku dheh. saasoo kale nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man lam yadac, qofkii aan iska dhaafin oo ka tegin qowla azuuri waalcamali bih, inuu markhaati beena furayo oo uu kadaab yahay oo beenta uu sheegayo waxyaalaha xun qofkaan ka tegin bisha ramadaan ee soomka aan ka tegin, falaysa lilaahi xaajatu, ilaahay wax dana kama lahaa fi an yadaca طacaamahu wa sharaaba, cuntada uu iska afqabtay iyo sharaabka uu iska afqabtay ilaahay wax dana kama laha. ilan soonka waxaa lagu yidhi iska daa cuntada iyo cabitaanka iyo jimaaca iyo waxyaalaha xun oo dhan, laakiin inaad biyihiina ka joogtid maanta o dhanna dadka ilaahay isa kaa nabadgelin, midaad xamatid iyo midaad caydid iyo midaad isku dirtid iyo mid aad dhagartid iyo midaad been u sheegtid, haddaad maanta o dhan aad ku jirtid waxa weeye akhii ama ukhtii gaajo unbaa isku dirshaye ajar meesha kuma yaal. marka waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah waxyaalaha kaloo sunnada ee mustaxabka waxaa ka mid ah in qofku uu cadaydo maalinta gelinkeeda hore iyo gelinkeeda dambeba waa la cadeyn karaa, waa sunno, nebigu marna kama uusan tegi jirin. casharkeennii maantay ku saabsanaa aadaabta iyo mustaxabaadka soonka intaas ayaan kusoo koobaynaa. waa inoo xalaqa dambe in sha allahu tacaala. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.